Soomaaliya barnaamijkan yaa wata barnaamijkan mashruucan yaa wata mashruucan yaa Soomaaliya keenay caruurta yaryar ee Soomaaliya soo koraysa waxa u socda tababar waxa u socda training already way diyaarsan yihiin ciidamadii dagaal beeleedyada gal lahaa mustaqbalka waaba u jeedaa tababar baa u socda marka barnaamijkan mahayad baa wadata caruurta adduunka markay ciyaarayaan waxay ku ciyaaraan gaariyaal diyaarado waxyaalo toysa waxyaalo technology waxyaalo drones yaryar oo ciyaara ma jiro caruur ciida markii la gaaro la siinayo waaridkood u gadayo hub iyo qoryo waliba qoryo casri ah ani arintan waa ka shakiyay meeshii ka soo degaan baaritaan lagu sameeyo yaa wadanka keena normal baa looga dhigayaa caruurta mustaqbalka ee Soomaalida mustaqbalka in qori la qaato in dad la dilo in mataqaana la noqdo mataqaana qof dilaa ah ba caruurteena brain wash baa lagu sameeyaa maskaxdoodii ba fikir qaldan baa caruurta la siinaya Soomaalida mustaqbalka sidoo noqonaya waxay ku xiran tahay sida caruurteena wax u barno sida caruurteena ay u bedeleen qaabkii u fakaraan laakiin caruurteena ku dhiirigelino dagaal iyo rabsho iyo buuq iyo dil iyo hub iyo waxyaalahaas ina maalmaha farxadda caruurta loo iibiyo adiga sabab wala muuqato bal fikirkiina ka soo dhiibta baashan dadka mid kale madaxda wadanka ah dadka dekadaha ka soo degta alaabtan ani waligay wadamo badan baa tii waligay ma arkin caruur maalmaha farxadda loo gadayo hub waaridka Soomaalida ayaga maxaa ka qaldan ilmahaaga maxaa maalin farxadda hub ugu iibine mid kale ilmihii dabada la keenay waa ilmo drugs iyo xashiish iyo balaayo daldalayaan ilmihii Soomaaliya joogayna waxa lagu tababarayaa qamro iyo shaq hub iyo dil iyo barnaamij noocaas iyo dagaal marka maxaa xal ah xagee wax ka jiraan ani barnaamijkan aad uga shakiyay laba sano ka hor baan ku fikiray ugu soo dhacday laakiin waxa la oran karaa barnaamijkan waxa jira dad fangareeyaan hubkan keenaan barnaamijkan waa barnaamij socda si dagaalada Soomaaliya ka socda mustaqbalka continue u soo noqdaan oo dagaalo kala go'ayn oo ilaa mustaqbalka soconaya u noqdaan waayo already ba hadda jiilka soo socda jiilka 100 sano 50 sano 60 sano ka bacay joogaya Soomaaliya already waa kuwaasa hubba loo dhiibay waa diyaarsan yihiin dagaalada mustaqbalka diyaar u yihiin dagaalka hawiyi daarood waa continue dagaal beeleedku uu sii soconaya laakiin waa inaa bedelna caruurteena si u fakarayaan inay naftooda jeclaadaan inay mustaqbalka noqdaan dad fiican dad mustaqbalka cad u arkin qof kale oo Soomaali asagii wareersan oo qori wada Soomaaliya waa inay noqotaan dad fijigan oo vigilant ah oo waxyaalaha agtooda ka dhacaya iyo waxyaalaha daily basis ka noloshooda ka dhacaya waa inay u jeedaan waxaan yaa keenay waxaan xagee ka imaadeen qofkan muxuu yahay barnaamijkan intee nooga imaaday waa inay noqotaan dad aragti dheer dad meel fog wax ka fiirinaya laakiin maanta oo inay daawatay jifi kale laysay oo reeguuraa oo meel dhagaxana isku dileen maanta oo ina meel cilaa indhahaaga ku dhameeysid iyo nacayb iyo reebel baan leeynaa iyo reebel meel baan iska saarnaa hebel waa eeyga waxaas waxa matras waa inaa noqotaan qof fijigan fiidogan share gareeya meel dheer gaarsiya ku share gareeyay maamul isku sheegyadan boqolkeed madaxweyne oo wadankan jooga bal mid walba tuur xirtay waxaan inuu joojiyo bal u share gareeya iimaanka Ilaahay ka qaadee ayaga ma kala jecla ayaga inay lacag ka arursadaan ma kala jeclaan wixii meeshan ka dhacay caruurtaada mustaqbalka waxa qabta inay wajiga leeyeen waxaas wajiga ma ilaa laakiin caruurtaada waxa uu iibinaysaa waa inaa ka fiirsataa wax kasta ma uu iibinay caruurtaada haday sun iigad ku dhaan ma u gadasaa waa inaa qof aqli la noqotaa waarid baa tahay caruur baa mas'uul ka tahay mas'uuliyad isa saar ha u fakarin sidii idihii oo kale baraar caadi ah noqoteen wax kasta waa gadanaysaan wax kasta ilmihiiba u iibinaysaan ilmihii adigaaba ku tababaraya inuu mustaqbalka fowdo sameeyo dhibaato cunugaaga mustaqbalka ma arta inuu tuug noqdo inuu dilaan noqdo ma arta inuu dadka dhac ma arta inuu isbaaraysta noqdo ma arta qorigan hada u gadid hadaba qof waxaas raba ilmaha realo fiidowga dawladda ku share gareeya dawladda share ku dheh